nooca saddexaad ee nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waxa weeye dulmi uusan ilaahay daynin kama tago waa dulmiga adoomadu ay isdulminayaan allah dayn maayo tabaaraka wa tacaala ilaa uu kala qisaaso oo xuquuqdooda uu kala siiyo iska dhaaf aadamaha iyo jinka iyo mukallafiinta iska badaaye thaqalaynka iska badaaye hatta bahaa'imta iyo duurjoogta iyo xoolaha rabbi tabaaraka wa tacaala maxkamadiisu waa inay u kala qisaaso dulmiga isu geysteen nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa tilmaamay ila ridii gees kala hayd ee midda aan gees kala hayn hardiday ila ilaahi u kala qisaaso tabaaraka wa tacaala adoomada xuquuqdooda waa kala siinaya jannana la aadi maayo cadaabna loo dareeri maayo ila xuquuqdii la kala qisaaso adoomadan waxay lahaayeen la kala siiyo sidaas daraadeed xaqaasina waa xaqaas aad isaga ilaali nabigeena waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri ruuxii dulmi galay oo walaalkii dulmi ka galay oo khalad uu ka galay walaalkii iyo dulmi uu ka galay agtiisa uu yaalo cirdi iyo sharafkiisa ku xadgudubtay xoolihiisi baad qaadatay dhiigiisi baad daadisay waad xamatay dhibaad u geysatay xuquuqda leeyihiin agtaada haday yaalaan nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ka xalaalayso ruuxii xaqan iska laha inta aan la gaadhin maalinta qiyaamada oo dirham iyo diinaar iyo lacag iyo adduunyo aan waxba lagu kala qaadanaynin maanta waxa weeye shilin hadaad siiso ama iska celiso inaad qancisaa laga yaabaa inaad iska sasabtaa laga yaabaa inuu iska ka cafiyaa dhici karta adduunyo kugu saamixi kara maalinta qiyaamada laakiin adduunyo meeshaasi ma taalo la isku furto madax furasho ma leh nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dhaalim kan dulmiga galay hadduu amal saalixa la yimid qadarkii dulmigu dhanaa amalkiisi saalixa laga soo goynaya markaasa waxa la siinayaa dadkii uu dulmiga ka galay salaadiisi soonkiisi xajkiisi acmaashiisi waa loo qaybinaya hadduusan wax acmaal saalixa lahayn ka war nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam kuwa dulmiga ka galay dunuubtoodii baa la soo qaadaya qadarkii dulmigu galay qiyaastiisi baa laga soo qaadaya dunuubtay galeen kadibna asaga dusha laga saaraya kadibna naarta lagu kaxaynaya xadiis kale nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri war ma taqaanaan ruuxa caydha ummadayda ruuxa caydha ma taqaanaan waxay rasuulku ilaahay anaga cayd waxaan u naqaanaa inaan xoolo haysan lacag haysan hanti lahayn saasaan u naqaanaa cayd nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ummadayda ruuxa caydha waxa weeyaan waa ruux maalinta qiyaamada iimaan doona salaad buu la iimaan soom buu wataa wuxuu wataa muxuu ahay zaku wataa acmaal waaweyn oo soo shaqaystay buu wataa dhanka kale mid buu caayay oo meesha taagan mid buu qadfay oo meesha taagan ku kale xoolihiisa cunay baa taagan miduu dharbaaxay baa taagan miduu dhiigiisa daadiyay baa taagan kulli meeshay soo safanayaan waxay leeyeen rabbi wa xaqanagi hana laga siiyo nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kan xasanaadkiisi baa qayb laga siin kii uu caayay kii uu qadfayna xasanaadkii waxba laga siin kii xoolihiisa cunayna qayb baa la siin kii dhiigiisa uu daadiyayna qayb baa la siin kii uu ku xadgudbayna qayb baa la siin markii la qaybiyo xasanaadkiisii wuxuu soo shaqaystay hadii ay dhamaato xasanaadkiisii khayrkiisii la dhameysay dad baa wali taagan oo safka ku jiro xuquuqdoodii la wuxuu ahaa afkiisa iyo adinkiisa midna aan controlin buu ahaa khalaa'iqdii uu dulmiyay baa ka badan xasanaadku la yimid allah muxuu sameeyaa tabaaraka wa taala wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam dambiyadoodii baa laga soo qaadaya dusha laga saaraya kadibna naarta lagu tuuray wal iyad billahi alaykum ya ka khasaaro badan ruux ma adduunyada intuu jooga dadaalayay maxaa xaj ah maxaa umra ah maxaa sadaqa ah maxaa salaad ah maxaa wanaag ah maxaa jihaad ah maxaa muxuu dacwo ah maxaa khayr oo meesha soo yaalo oo buuro leeg haddana maca dalika waa la qaybsaday oo dad baa qaybsaday isagana dunuubtoodii buu naarta ku galay wariya ka khasaaro badan tacab khasaar sidaas daraadeed baa rabbigeen quraanka kariimka wuxuu ku sheegay maalinta qiyaamada markay wajiyadu hogtaan
ooy dulloobaan oo wax hadla la waayo maalinkaa isaga yaa khasaaray waqad khaaba man xamala dulma maalinkaasi ninkii isagoo dulmi xambaarsan yimid kaasaa khasaaray buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala oo u dhammaatay war dulmiga iska ilaali war waad dhiman oo rabbigaa baad hortegi oo waa lagula xisaabtami oo hawlbaa horraysa haddii ay noqoto uun maanta waxa ku hor yaalla keliya aad fiiriso cun oo cab oo laad oo haraati oo ku xadgudub oo dhigtaadi oo xamo oo hawba yeelin oo dacaayadee oo meeshaad doonto dhig xageed ku socotaa miyaadan rumaysnayn aakharo miyaadan rumaysnayn aad rabbigaa la kulmi doonto miyaadan rumaysnayn maxkamadda cadaaladdu inay dambayso miyaadan rumaysnayn adduunkan haddaad fakato inaadan aakharo fakan doonin ilaahay ha laga boqo dulmiga ha la iska ilaaliyo kii la galayna ha laga toobad keeno kii aadamahana ha laga xalaaloobo celi wixii xuquuqa xuquuqda waxaa ugu weyn oo ugu halisan oo ugu khatarsan xuquuqda dadweynaha kursiga iyo jagada ummaddu ay leedahay xoolaha iyo hantida ummadda guud ee ka dhaxeeya ta ugu khatarsani taa iyada ah waana midda maanta sida waraabo ooman oo kale ama gaajaysan oo kale la halabsanaya way ood mooda rabbi tabaaraka wa tacaala quraankiisa iyo sunnada nabi inay xalaaleeyeen oon xaaraantaba ku jirin waay nin walba meeshaad ka soo gaadho gooso nin walba meeshaad ka hesho qaado nin walba saad u hesho u qaado gurta oo cuna oo ka dherka oo guriga ka dhista oo waxa doontaan sameeya laakiin geerina waa dambaysa maxkamadii rabbina waa soo socota ساد يلي هذا يكون الله صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك